wararka ka imaanaya degmada Doolow ee gobolka Gado ayaa xilligan waxa ay xaqiijinayaan in askari ka tirsan ciidamada nabad sugidda ee halkaasi ku sugan uu dilay abtigii hooyadii la dhashay waxaana warar soo baxaya ay xaqiijinayaan ilaa iyo hadda in aan la ogeyn sababta uu dilay ciidamada ammaanka ayaana markaasi soo xiray baaritaano dheer oo ay sameeyeen kadib askarigii dilka geystay goobjoogayaal ku sugan gudaha degmada Doolow ee gobolka Gado ayaa sheegay in muddooyinkii ugu dambeeyay uu khilaaf xooggan ka dhex taagnaa askariga dilka geystay iyo abtigiis kaas oo la sheegay in uu salka ku hayay muran maalmihii dambe dhuleed ee u dhaxeeyay labada shakhsi abtiga la dilay ayaa waayadii ugu dambeeyay si weyn waxa uu ahaa mid ugu dhuumalaysanaya gudaha kadib markii in badan laamaha ammaanka ee degmada uu gudbiyay in ninkan dhowr jeer uu markaasi handadaad dil ah inuu u geysan doono uu horay ugu goodiyay askariga wax dilay wali lama soo bandhigin magaciisa rasmiga ah balse waxaa la xaqiijiyay in uu ka mid yahay ciidamada nabad sugidda ee ku sugan gudaha degmada Doolow ee gobolka Gado saraakiisha laamaha ammaanka ee ka howlgala gudaha degmada Doolow ee gobolka Gado ayaa xaqiijiyay in askarigan cadaaladda la marsiin doona wixii sharciga uu ka qabo waxaana ay xaqiijiyeen ehelada abtiga inay xaaladda dejiyaan walow dhaqdhaqaaqyo kacdoon shacab ah laga dareemayo gudaha degmada Doolow ee gobolka Gado Cabdilmajiid Cabbaas Aadan Fantastic KNN Kismaayo wiilkaygiiyow ii soo tiri isbitaalada magaalada ku yaala Soomaali Suudaneys kow bes Allahu akbar war meeqa tabeelan laamiyada ku arkay aaba matayaad rabtaa mise tabeelle tayo allay leh haba u labayn Soomaali Suudaneys Hospital SSH Premier Wallet baahitiraha bulshada ku bixi biilka ku dukaamayso ku iibso ama kaga iibso Premier Wallet adeega